sida aynu wada ognahay Soomaaliland weli lama ictiraafin balse waxa jiray wada hadallo u socda Soomaaliya iyo Somaliland marxalado badan baa la soo maray marxaladahaasi waxa jiray inaan daacad laga ahayn oo runtii waqtigii Abu Dhabi la joogay waqtigii Istanbul la joogay Turkiga in waxyaabo badan isbedeleen waxyaabaha laakiin lagu heshiiska ahaa waxa ku jiray mashaariicda horumarinta oo kale waa la isku waafaqsanaataa maadaama Soomaaliya la ictiraafsan yahayna inay mashaariic badan soo marayaan xagga Soomaaliya wax la iska wada og yahay maanta maxaa keenay in la yiraahdo ay golaha wasiiradu soo saaraan daraad miyaan idhaahdaa shiran caadi ahayn intay qabteen ay yiraahdaan mashaariicdii Soomaaliya loo soo maraysay ma doonayno iyo Somaliland ha lagu bixiyo wax noocaas iyo tagitaanka madaxweyne Biixi aw tagay imiga Djibouti runtii haddaanu annaga gobolada galbeedka Soomaaliya ama gobolka Awdal aanu nahay saameyn weyn bay nagu yeelanaysaa because of waxa loogu jiray dariiqa dheer ee Djibouti ilaa maxay ahayd Boorama ilaa Soomaaliya maartay Dirdhaba dariiqaasna waa ka mid mashaariicdii maartay ay ka hadleen golaha wasiiradu arrinka aad baan uga soo horjeednaa waana loo baahan yahay wax loo baahan yahay oo maartay kaabayaasha dhaqaalaha muhiimka ah marka waxaan leenahay arrinka waa in dib looga noqdo hadiiba ay ka mid tahayna maartay arrimaha uu imiga madaxweynuhu u tagay Djibouti runtii dareen badan baa jira waxaasina waxa keenay waxyaabaha muhmalka ee had iyo jeer lagu socdo imiga maalmo dhoweed wax lagu wararsanaa sawir xajka lagu soo galay waxyaabo badan oo muhmal ah jira marka waxaan leenahay dariiqa sidii loo furay waa inuu u fulo ayaan soo jeedinaynaa barnaamijka New Deal-kii ee hore ee ku egaa waqtigii sanadkii dhaweed ee Brussels lagu shirayay intii ka horeysay dee sida u qorshaysnayd waxa Somaliland wax la siin jiray special arrangement wax la si gaar ah loo eegi jiray laakiin de bylaw shuruuc sharci ahaan waxa soo maraysay international community markuu bixinayo de dawladda muctarafka aad buu soo marinayay aruuriyadan de waalida imiga la leeyahay calankayagii iyo khariidadayadii iyo maxay lagu bixiyo ma qaba sida loo sheegayo waa dawladdu waxa khariidada yeelan kartaa marka la aqoonsado oo calankeeguna uu yaalo maartay ciidan wax bixinaysa u bixiyaalada UN-ka ama international community ama EU ha noqoto EU-da iyo wadamadan Afrikaanka iyo waxaan dhammaan waxay wada hoosagaan UN-ka weyn marka ma garan karayno sababta imiga keentay in la yiraahdo maartay systemkii hore ee loo isticmaal jiray ay Soomaaliland wax ku heli jirtay hal laga bedelo oo magac kale oo annaga noo gaar ah la nagu dhaqmo de horta ictiraaf baa ka horeeya marka lagu ictiraafo ayaad dawlad la siman Soomaaliya noqonaysa oo wixii gaar u qaatay laakiin inta ka horeysa de geelu isugu ka jira weli geeleen ma kala socdo Soomaaliya iyo Somaliland waa si dhaba wada hadlaan ma aha hadii jeer lagu dhex jiro annagu waxaan oran lahayn waa toos wada hadlaan waayo ictiraafka ugu horeeya ee Somaliland cid u haysa waa Soomaaliya uma hayaan Ethiopia uma hayso Djibouti uma hayso wadan kale u hayaa ma jiro waa in si toos ah wada hadlaan baan leenahay Soomaaliya iyo Somaliland oo aan jirin cid u dhaxaysa oo lagu wada hadli karo Boorame oo lagu wada hadli karo Hargeysa oo lagu wada hadli karo Xamar. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.